shirka socda magaalada muqdisho ee u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa wararka naga soo gaaraya ay sheegayaan in dhinacyada ay ka doodayaan qodobada la isku khilaafsan yahay ee arrimaha awood qaybsiga iyo kheyraadka ee ku jira dastuurka Soomaaliya. qodobadan oo ay ka mid yihiin qodobada 53 iyo 54 ayaa sal u ah khilaafyada dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. haddaba wasiirka dastuurka federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa arrimahaas uga waramay Saare Cabdi Axmed oo stuudiyaha ugu sugan. aan ka helin madaxtooyada odayaashii waa wada fadhiyaan ilaa shalay isfaham weyn wuxuu ka dhex maray dhinaca security-ga ama nabadeynta. haddana waxyaalihii yaraa oo ka dhinaabay ka wada hadlayaan jawi fiican u ahaa. marka arrimahaas in carqalad jirto hadda ma aan ogi, waxba kama ogi. haddaa idinka taas meelo kale ka heshay loogi laakiin comment kama bixin karaa taas maxaa wax iiga muuqda meesha ma ayn hadda. ma jirtaa in la codsaday in wasaaradaada adigaba aada goobjoog ka noqoto shirka si qodobada mudmadowga ku jiro looga hadlo oo dhinaca dastuurka? waxaa jirtay in daraad la iigu yeeray inaan warbixin siiyo xoghaynta ay samaysteen guddiga maamul goboleedka iskaashiga ay samaysteen xoghayn ay samaysteen ka iyagiia waxaa la yidhi warbixin siiyi meesha wax marayaan. iyagiiaan warbixin siiyey mana ahayn waxyaalaha asaasiya laakiin waxay ahayd wax overall oo sidii processki iyo afraaci loo mari lahaa un baan ka wada hadalna. waa gartay waxaa jirta in shir uu baaqday, waxaa jirta in qodobada qaarkood la isku mari la-yahay oo dabcan khilaafyada la sheego dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada inay qayb ka tahay qodobada dastuurka qaarkood ee awoodaha difaaca arrimaha dibadda iyo wixii la halmaala. marka qabyatirka dastuurkan sidee ayay caqabad ugu tahay madmadowga iyo khilaafyada maamul goboleedyada isku qabqabsiga qodobada qaarkood? runtii haddaan idhaahdo waxaa dhacday shirkii aan qaban lahayn October oo daafurka dastuurka waxay ahayd xukuumadda inay kusoo bandhigto istaraatiijiyadii ahayd sidii looga wada hadli lahaa, looga xaajoon lahaa awood qaybsiga iyo kheyraadka iyo waxyaalaha la kala leeyahay iyo waxyaalaha la isla leeyahay. dabcan shirkii ma usan dhicin laakiin hadda un roadmapki waa loo yaalaa. galabtadaan ra-iisul wasaaraha yani waan ka wada hadlayna isagaana aada u danaynayo inuu hormuud ka noqda arrintaas. dabcan hadda shirarka markay dhamaadaan waxaan qabaa waxay kasoo bixi doona inay noqotaa in iyo kale la qabsado. markaasna kolleyba waxyaalahaas awood qaybsiga iyo kheyraadka waxaas waxay u baahnaan doonaan dad technical ah oo xirfadahaas si fiican u yaqaana, ama ha noqoto sharciga ama ha noqoto dhaqaalaha ama maamulada mataqaanaa kheyraadka ama xataa waxaa la yidhaahdo heshiisiinta ama negotiationka dad yaqaano technical in hoos laga soo helo oo waxyaalahaas inta lasoo bisleeyo madaxdii markaas loo soo diyaariyo opshino kala duwan loo soo diyaariyo oo markaas iyaga ka xaajoodaan heshiis ka gaaraan. taana kolleyba waxaa loo qornaabay ahayd sanad soo socdo in la bilaabo waxaasoo dhan. dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilaya dalkiidinka qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon. miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay
maxaa culumadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qalloocane ogow quwadii allo quruma rugtay baa jirte quruma rugtay baa jirte qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo kixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa qulubku qarax buu dhalaa dalkiisiiyo qariban fanaan wax ka qaban karin dadkiisina u qabiil qabiil u qaybsamay baan ahoo qalbigu way oloolayaan intii quman oo dhaniyo qofkii ila aragtii iyana way ila qabaan qabkiyo kibirkiis dirdiray isqoonsaday isqabsaday qatarta umaday gasheen intuu qabar laayaya qaarkii u faniin ku dilay qudhaba wixii aan ku weyn mid kasta qodu carareeya dadkii qulquloo badnaa qaxootiga wada noqdiyo qiimihii dalka iyo dadkii qaranka soomaalinimo qaabaynu u heli karaa hal qodobaa jira ogow dastuur weeye iska qoran dadkana lagu kala qanciyo qaladka lagu kala saxo sinaan wax ku qaybiyo kitaab weeye qur-aan qabsada soomaaliyey khuraafaad lama rabo